gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Aadan Faarax Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee degmada Buurama buugta manhajka dawladda oo ay soo daabacday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. buugtani oo si rasmi ah loo gaarsiin doono dugsiyadaasi ayaa waxa maamulo kasta si rasmi ah ugu shaabadeeyay page-ka loogu talagalay shaabada dugsigaasi xarunta wasaaradda dhexdeeda. ugu horeyn haddaba waa kan maamula Cali Habana Bakaal oo ku hadlay afka maamulayaasha maanta sida rasmiga loogu wareejiyay buugtan manhajka dawladda ee qayb ka noqon doona tayeynta waxbarashada ardayda. haddaan nahay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe waxaan maanta la wareegnay buugaagtii ardayda ee manhajka ahaa oo la siiyay waana ka gudoonay. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxa xafiiska waxbarashada tooska oo buugaagtaasi toos aan lagu wareegnay. waxa kale oo mahad u celinayaa maamulayaasha, waxaan kale oo mahad u celinayaa bahda saxaafadda inala joogta. waxaan leeyahay jazaallahum khayran jazaa intii soo samaysay buugaagtaasi. runtii waxa loo baahan yahay ardayda inay ka faa'iideystaan anaguna insha Allah sidii ugu wanaagsan baan anaguna u maamuli doonaa si aanay gacanteeda uga bixina kuwii horeba sidii uma gacanteeda ugu jiraan. geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Saleebaan Xasan oo ah madaxa waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal. waxaanu halkaasi ka sheegay maanta oo ay bishu tahay 20kii bishii labaad ee 2021 waxaan halkan ka soo jeedinayaa in annaga oo macnaha ku jiray muddo dhaweyd oo dhan aan hawsha qorsheynta buugta ku jirnay in maanta aan bilownay dugsiyada qaarkood iyadoo dugsiyo horena aan kullee gaarsiinay magaalada gudaha iskuuladii ugu badnaa ee gudaha Boorama. maamulayaashoodii qaar ka mid ah halkan nala jooga deedna waxaan halkan ku soo gudbinaynaa in buugtaasi sidii loogu talagalay qaybinteedu uga bilaabantay gobolka. buugtaasoo aan inta aan ku jiro gaarsiinteedu 120 iskuul oo gobolka gudihiisa ah kana kooban maadooyinkii dugsiga hoose dhexe ee 7 maado ahaa. waxaan halkaa markaa ku cadaynaynaa in maamulayaashaasi aan ku dardaaraynaa inay xil iska saaraan buugta maamulo kastana page-kii la siiyey sidii loogu talagalay u shaabadeeyay inta hadhayna loo dhammaystiri doono. waa asadkii loogu talagalay ubadka waxbaranaya markaa si aanay gacanteena uga bixin in sidii loogu talagalay aad isaga xil saartaan oo hawsha aad waajibaadkeeda u gudataan insha Allah. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Aadan Faarax Maxamuud oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu kula dardaarmay maamulayaasha maanta sida rasmiga loogu wareejinayo buugta manhajka dawladda. waxaan halkan ku gudoonsiinaynaa maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee degmada Boorama buugtii textbook ahayd ama manhajkii loogu talagalay sanad dugsiyeedka 2020-2021 iyadoo bariyaan baynu ku jirnaa qaybinta buugtaas aanan rabno maalmaha soo socda ama 3 cisho soo socota inay dhammaan gobolka Awdal meel kasta ay gaadho. waxa aan kaliya aan ku dardaaraynaa buugtaasi waa hanti dugsigu leeyahay, waa hanti ardaydu leedahay, waa asadkii iskuulka. maamulayaasha waxa leeyahay buugtaasi hal la dayactiro, buugtaasi hal la xafido, buugtaasi ardayda ha gaadho oo iskuulkuna hadduu haystana dee faa'iido ma leh. haddii buuggii ardayga intoo la siiyo laga daba tegi waayo ama markuu taariimku dhammaado wixii nool dib loo soo celin waayo oo ardayda ka dambaysa dib loo siin waayana iyadna waa hawl kale. dugsi kasta page gaar ah ayaanu u calaamadaynay si loo xafido hantidan ama buugtan. taamicneedu waxay tahay haddii iskuul lambarka loo calaamadeeyay ee uu ka shaabadeeyay buugga haddii suuqa lagu arko buuggaas number 7 ka shaabadeysan oo iskuulka hebel lahaa ama isla page-ka laga gooyay de maamulahaas lagu qabsanaya. yani xikmadda ama ujeedada laga leeyahay in iskuul kasta hal page looga shaabadeeyo waa saas weeyaan. maamulayaasha soo ogaadaan haddii iskuulka Sheekh Cabdiraxmaan la siiyay lambar 27 baa la siiyay lambar 27 buugga suuqa lagu arko meel kastoo Soomaaliland lambar 27 oo Sheekh Cabdiraxmaan dugsiga hoose dhexe Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu qabsanaya. laba siyoodba bariga hore wala sameyn jiro buugtu markay iskuulka ka baxaan page-kaas la goyn jiray
marka page-kaasi hadduu ka maqan yahayna oo tuunisama ka maqan yahayna waa Sheekh Cabdiraxmaan hadduu ku yaalo oo suuqa lagu arkana waa Sheekh Cabdiraxmaan yani waxaan ka wadnaa in buugtaasi la xafido inay buugtaasi gacanta ardayda iyo gacanta iskuulka inay ka bixin oo ayna meel kale marin baan yani sawniri waxaan rabnaa ardaydu inay ka faa'iideystaan ardaydan waxaan fariin u direynaa inay buugta ilaaliyaan oo midna ardayga grade 6 ka imika la siiyay oo buugta xafido sida walaalkiisa ka dambeeya sanadka dambe grade 6 noqonayay أو منطقة نائن وقفها دي السنة كان ضبط